Hay-adaha sirdoonku waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin nabadgelyada iyo geedi socodka hanaanka amni ee waddan kasta. Asal ahaanna waa hay-ado dawli ah oo u xilsaaran ururinta, falanqaynta, iyo isticmaalka macluumaadka la soo ururiyay ee ku saabsan ka hortagga khataraha amni, tiknoolajiyadeed, iyo sidoo kale fulinta ujeedooyinka siyaasiga ah ee arrimaha dibadda ee uu waddan kasta leeyahay. Haddaba, inkastoo ay adag tahay in macluumaad ballaaran laga helo hay-ad sirdoon, haddana waxaan isku dayi doonaa inaan idila wadaagno macluumaad kooban oo ku saabsan saddexda hay-adood ee ugu tayada badan caalamka. Waa marka ay noqoto dhanka sirdoonka iyo sidoo kale xilligii la aasaasay iyo waddanka laga leeyahay mid kasta. Ku soo dhawaada mawduuceenna maanta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartid, sidoo kalena barnaamijka noo share garaysid si uu u gaadho dad badan. Mahadsanid. CIA waa mid ka mid ah hay-adaha sirdoon ee caalamka ugu awoodda badan uguna khibradda badan. Waxaa toos u maamusha dowladda Maraykanka, waxaanay u xilsaaran tahay ururinta, habaynta, iyo falanqaynta macluumaadka amniga qaranka ee adduunka oo dhan. Waxay siisaa xog iyo xirfado aqalka cad ee Maraykanka si ay madaxweynaha xilka haya uga caawiso qaadashada go'aanada saxda ah ee ku saabsan arrimaha dibadda iyo guud ahaanba arrimaha amniga ee qaranka. Waxaa aasaasay madaxweynihii 33aad ee dalka Maraykanka, Harry Truman, xilligaasi oo ay taariikhdu ahayd 1945 oo ahayd dagaalkii labaad ee adduunka markii laga soo laabtay. Xarunta guud ee hay-addani waxay ku taallaa gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. 15 bilyan oo dollar oo dhaqaale ah ayaa sanadkii kaga baxa dalka Maraykanka hay-addan, waxaana ka howlgala in ka badan 22,500 oo shaqaale ah. MI6 waa mid ka mid ah hay-adaha sirdoon ee aadka looga ixtiraamo adduunka. Waxaa la aasaasay 1909, waana wakaaladda mukhaabaraadka iyo xogaha sirta ah ee dibadda ugu qaabilsan dowladda Ingiriiska. Waxa ay si toos ah uga tirsan tahay xafiiska xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska. Haddaba, waxaa cajiib ah inaan hay-addan sirdoon adduunka laga aqoon ilaa laga soo gaadhay 1994 oo si rasmi ah loo ogaaday inay muddo 90 sano ah si qarsoodi ah uga shaqaysanaysay dunida. Hay-addani waxa ay ku lug lahayd dhacdooyin badan oo waaweyn oo taariikhi ah, sida dagaalkii labaad ee adduunka, dagaalkii qaboobaa, iyo khilaafyo kale oo badan oo gobolka iyo adduunka oo dhan ah. Xarunteeda guud waxa ay ku taallaa magaalada London, waxaana ka howlgala in ka badan 3,600 oo shaqaale ah. Dhaqaalaha ay dowladda Ingiriisku ku taageerto wakaaladani sanadkii waa 3.7 bilyan oo dollar. Research and Analysis Wing waxaa la aasaasay 1968 kadib markii ay ku fashilmeen sirdoonka Hindiya dagaalkii dhex maray Shiinaha iyo Hindiya ee 1962. Wakaaladii xilligaasi u qaabilsanayd arrimaha sirdoonka ee waddanku waxay ku fashilantay inay jawaab buuxda ka bixiso khasaare kala duwan oo dhanka sirdoonka ahaa xilligii uu dagaalkaasi socday, maadaama ay mas'uul ka ahayd amniga dibadda ee waddanka. Xilligaasi kadib, dowladda Hindiya waxay aasaastay hay-addani mukhaabaraad ee lagu magacaabo Wing Research and Intelligence oo si buuxda ugu heelan arrimaha sirdoonka ee dibadda. Waajibaadka saaran hay-addani waxaa ka mid ah la socodka hubka iyo maandooriyaha sida sharci darrada ah u soo gala dalka Hindiya oo ah mid aad u badan. Sidoo kale, ururinta xogta sirdoonka ee dalalka shisheeye ee khuseeya amniga qaranka ee dalka Hindiya. Wakaaladdu waxa ay saameyn la taaban karo ku lahayd Afghanistan tan iyo 1990 kadib markii ay soo baxday xarakada Taliban. Xarunta guud ee hay-addani waxay ku taallaa magaalada caasimadda ah ee New Delhi.